شورى wiilashii bajaaj lahaa reer gaalka ayaa sheegay inay waxa weeye boqolkiiba konton ay galmudug ka raqaysan tahay boqolkiiba konton waxa weeye bajaajleyda waxa weeye gaalkacyo joogtana waxa weeye joogtana ay galmudug ka cashuuran yihiin wiilashii waxa weeye reer waxa weeye gaalkacyaa sheegay anagu maanaga ka hadlaysiina taasna waxa weeye qof halkan tiktok yimo istifaacay iyo qof waxa weeye reality ka hadlayo isagu shaqadiisa ka hadlayana dee waxa weeye difference u dhaxaysta waa garanayna marka qofka reality ka qaadanayna xagga taarikada waxa weeye taarikada baabuurta waaweyn annaga waxa weeye baabuur weyn cadda mid leh ilaa iyo beledweyne ka shaqeeya weligii kaba aan furin waayadii hore way jiri jiray laakiin sanadadii la soo dhaafay oo dhan weligii kaba aan furin taarikada adu waxa weeye 7 sano la soo dhaafay taarikada kaba aan furin galmudug taarikada galmudugna waxaan uga furin waageeda hore tubaaba waxa weeye galmudug aan ka qaadana iyadana waxa weeye ka raqiisanayd dekeda waxa weeye waxa weeye hobyo waa deked 3F yaa ka dega raashin baa ka dega shidaal baa ka dega xataa waqooyi bari baa waxa weeye baa teknik kala soo degtay oo saarad kala soo degtay oo laasacaano ay halka ka tageen wayna ka cashuur jaban tahay wayna waxa weeye ka service fiican tahay wayna waxa weeye soo dhaweyn waa ka soo dhaweyn fiican tahay laakiin xooluhu kama dhoofi karaan xooluhu waxay uga dhoofi karin waxa weeye 8 iyo 10 maalin ayay waxay ku gaaraysaa waxa weeye doontu ay ku gaaraysaa waxa weeye Cumaan iyo waxa weeye Dubai ay ku gaaraysaa Sacuudiga iyo meesha boosaaso waxa weeye 24 saac ay ku gaarayso baabuurka waxa weeye beledweyne laga soo qaadona waxa weeye 12 saac uu boos ku gaaraya ma ka yar 9 saac ama 8 saac ku gaarayo marka waxa weeye baabuurka beledweyne xoolaha laga soo qaado oo boos aada 8 saac waxa weeye 9 saac labiya waxa weeye 12 saac waxa weeye u socoto khaliijka adigu waxa weeye 2 maalin buu ku soo bay xooluhu waxay ku tagayaan meeshii laga iibsan lahaa meesha 20 beri marka hadii hubyo laga raro ay tagaya iyo saayid hadii dabeel jiraan ka sii daran ma taqaan istaraatiiji juqraafiga waxa weeye badda Hindiya garaacad hadda xoolo ka radho suurtagal ma noqonayso 14 beri bay wax u soconaysaa raas casay doonto waayo waxa weeye 900 mayl weeye bay wax u jiraa waxa weeye raas casay markaas waxay sii qaadaysaa baddi waxa weeye Persian iyo waxa weeye iyo Gulf Cadam intii ku sii jirayso ka sii dheedha xoolihiiba waa wada dhinteen baba marka horta badda cas istaraatiiji juqraafigeeda waxa u kalifay xooluhuna markii waxa weeye ay marayaan laamiga de baabuurku wuu dheeraya degdeg buu boos ku tagaya badna ma saaro kuleyl ma aha oo xooluhu waxay dabayl ba iska helayaan waxa weeye iyagoo dabayshada iska nuugayo oo berri waxa weeye maraya ayay waxa weeye xaraas hadday helaan bay ku tagayaan oo waxba ka dhiman laakiin baddu waa another case ma garanaysaan xooluhu kuma noolaan karaan ay si hadda u shido waxa way xooluhu way dhimanayaan 24 saac xooluhu hadday waxa way saaraadaanin badda oo doonto ay xumaato khalaas xoolahaas way ku daay way dhinteen xoolo waxa way garaac laga raro iyo laga raro waxa way hobiyana way dhinteen maba noolaanayaan sidaas marka xooluhu u yimaadaan dhulkaan sida in loo fahmaa qurba midda kale ay diishay waxa way warheed hadda galmudug waxa way dhinaca waxa way baraxley hadday tahay waxa way iskuulka sare waxa way shahaadadiisi hadday tahay waxa weeye kaarkin waxa weeye national ID hadday tahay waxa weeye caafimaadkii hadday tahay waxa weeye dokumentadii dawladda hadday tahay wax walba oo waxa weeye service oo qof waxa weeye u bini aadmi u baahan yahay dadku waxay ku xiran yihiin galmudug bay ku xiran yihiin oo dawliga federaalka ay ka helaan dadkan waxa weeye mudug aad joogto gaalkacyo jooga dad waxa weeye maamul ahaan iyo dawli ahaan iyo system ahaan iyo facility ahaan ku xiran weeye baraxley hadda gaalkacayna waxay isugu tagtay baraxley bay isugu tagtay halkaas ara magaalo ka ah hoteeladii caafimaadkii waxbarashadii shahaadadii national ID-gii passportki ankay wixii oo dhan waxa weeye xaggaas waxa weeye raqiisan xaggaas facility alright marka bulshada xaggaas waxa weeye hadda ku xiran tahay saa weeyna faataa weeye alright waa fahanay in adeer horta laba
dhibaataa la isku khaldayaa arrinta war bal fiiri hadalka gobol noo dhiibaynaade aa waaya ku socda maya waaba lagu dhibiyaa hardilo waxoogaa naga raalaya qolkaagii baan joognaa marti baan kuu nahay aan iska laandheerin waxbaa falanqaynaynaa horta ani laba qolkii masala qolka ani adu waa saaranahay qolka gabadhaa saarahe maya maxaa dee qol ciise maxamuud baan joognaa garow waan joognaa inaad inaga hesho xoogaa bash aa kula kaftabe horta in maadarayaalow reer puntland baan nahay bahashiyeysa meel fog naga gaaray iyo inaan isku khaldin dhulka xuduudaha puntlandka gacmaha lagu wado maxay tahay haddaba maya dhulka maya hadduu fiiri fadhihin fiiri soomaali waa kala baxday waa somaliland iyo koonfur iyo waxaas u kala baxdee anaga reer puntland baan waa nahay maamulo badan wey adiga ahe dadka sanka ka gelinaada annagu ma maya nihin waay alright okay ma jeerteen baaba nahay haddaa ku yidhahdo ma ku qanacaysataa waa yahay meel xuduud ah iyo meel magaalo center ayaa la isku khalday meesha xuduudda ah fiiri sweden oo kale magaalada maalmo la yiraahdo ninkii yaqaan baa yaqaana dadku inta badan waxay u shaqo tagaan denmark waayo denmark baa ka shaqo badan hadda mas-uul sare wuxuu degan yahay jarmalka u yaqaanaa dadka triyer iyo meeluu iska dhiibay degan luxembourg bay u shaqo tagaan dadka faransiiska xuduudaha jarmalka degan faransiiska u shaqo tagaan qaar baa switzerland u shaqo taga marka niyahow gaalkacayana waa noocaas oo kale laakiin system iyo dowli baa meeshan ka jira taa waa taa midda kaleeto mas-uul sare uu ku saxsanya waxay tahay badda hindiya iyo badda cas waa kala duwan yihin markay noqoto dhanka xoola dhoofinta oo ah waayo dekedahan boosaaso iyo laas qoray iyo haddii qandalo wax laga dhoofinayo iyo haddii maaragtay waa ka dhow yihiin carabaha markii mukalla la dhaho markii jisaan oo sacuudiga la yiraahdo markii salaalo la yiraahdo markii dubay la yiraahdo way ka dhow yihiin way ka fudud yihiin kuwa hindiya ku yaala markii markab doon la yiraahdo waxay ka soo socotaa dibadaha hindiya badii way aad ugu dheertahay mafahamtay waqti dheer marka taa inaad kala fahantaan laakiin haddii maanta dhan gaalkacayo lagu rafto oo reer halkaa degan loo tuubaraano waa fahmaya sheekadee arrintu xaalad kale isku bedelaysa xaalad siyaasadeed ba isku bedelaysaa meel xuduuda iyo meel centra garoowe hadda fiiri waxaa la yidhi shalay nimankan degan meesha la yiraahdo khaatuma ama waqooyi bari laba taarikay isku soo dhaysan jireen sidoo kale waagii aysan jiri jirin waqooyi bari laba taarika puntland iyo ka socon jirtay iyo somaliland midna somaliland baa xagga ku dhegan taarikada somaliland baabuurka candhamaydlaha midna tii puntland baa ku dhegan labadaba saas ciidamadu ku aqbali jiraan anigu hal fikir baan soo dejin lahaaba baabuurtan koonfur u yaacaysa ama hirshabelle ha aadaan ama waqooyi ha aadaan meeshan la yiraahdo galmudug ama ha aadaan kiilka shanaad ileen hagga iyo galdugob bay ka wareegayaane in la yiraahdo gaalkacayo custom ha laga dhigo baabuurtan reer puntlandka kaleeto reer nugaaleedkan iyo reer qardhoodkan iyo reer karkaarka iyo reer barigan shishe iyo in shaqo loo sameeyo oo la yiraahdo baabuurtan hawiyaha ee maalin walba lagu laandheeraynaya salaamiyadeena cusub ku soconaysa markay gaalkacayo ka gudbaana aan lahami helayn la yiraahdo halka alaabta dhiga oo shaqo abuur loo sameeyo dadka reer puntland anuu taas baan soo jeedin lahaa ilayna caqligu shaqeeyaa fiican laakiin maalin walba haddii la dhaho gaalkacyo maxay saas u noqdo gaalkacyo ma aha dee garoowe maaha in gaalkacyo garoowe kaa isaga khaldamaan ama qardho iyo boosaaso ay kaa isaga khaldamaanna waa khalad gaalkacyo waa magaalo xuduuda dadka maxay gaalkacyaa tahay ma nihine annagu si otomaatiga baan rabnaa inaan dooda u galno marka waxa weeyaan marka waxa weeyaan niyahow fiiri anigu waxaan ku iri denmark iyo sweden magaalada maalmo la yiraahdo iyo magaalada copenhagen dadka inta badan in adeer inaan wixii xuduudaha iyo inaan isku khaladno maaha nin reer garoowe ah muuse waa khaliif sheekh maxamuud ka nool waaye daaya waa nin cumar maxaa ah cumar saleebaan ha kaa qusay aamin oo adim xagaa qusay waxaan hadda kala dega maya ani hadda cumar maxamuud waa uu yahay dee laftaas waaye maya cumar maxamuud ani tunka waa qaban karaa laakiin ma rabo inaan qabto bahasha inaan fiqiyaa anigu fiiri anigu afkayga iyo carabkayga anaa iskale
ciise maxamuud baa tu ka qaban karaa waa caayi لوليتا karaa laakiin توبي micne iima ما sugayso إنه بدش توبي وحوي في عبا صعدة dee wixii waaba laga soo dhex galay loo sida tigo magaalooyinka iyo u kala islaamaya iideen iyo hawlahaas ma ayna gelisaan ولا ما لو ابنها دق سان لو انت لو دق ما يسيسان موسى ودمي موسى موسى عارف ما جرى فارق ويا بل يو يا لو نقدقي دق قفا نقدقي يا نقدقي ورد لو يام بعد انا لو دق يسي يعني قد arkaysa eedda naga daa ninkaas faaruq weeye waxba kama dhegaysanayna ما waa dhameystay قد اسماعيل علي اسلتين ميا ما عمر علي وعمر علي ويل كان عمر علي اوكي اسماعيل علي كفوق هي سيده توسكا راييدي ابا دي اسا مود ku jire hadda ma soo bixin ninka asay mud ku jire u kaadiya no علي سلام waa kala dagayaan anaga waa kala dagnay war bal u kaadiya علي سلام saar waa kala dagaysaan buuratiin saaran kala daga nidaamka cusub ee bajaajlida magaalada gaalkacyo ee puntland ina adeer laguma maqlo maxaa ka hadlaysaa hello are you there waa lay maqlaa ma lagu maqla miya ma lagu maqlo soo bilow loliteer waa maqlaayee in la shaqeeyo waxa ka fiican hal maalin si fiican u shaqeysato maadaama magaalada gaalkacyo bajaajlayaasha ay ku bateen caqabada koowaad oo la qaban karo la sameyn karo waxa weeye in AEB laga dhigo AEB ma xume waxa nala shaqeynaya bajaajlada galmudug haddii galmudugna naga qabanayo oo bajaajlayaasheedana naga qabanayo waxaan diyaar u nahay inaan gawaarida diiwaan gashano waxaan codsanaynaa dawladda ka codsanaynaa in bajaajlayaasha galmudugna naga qabto magaalada gaalkacyo maadaama kana laba maamul ay ka jiraan sidee uga suurtagelaysaa in bajaajlayaasha magaalada gaalkacyo ee puntland qaybta ah in loo kala qaybiyo AEB ay ku shaqeeyaan bajaaj aan buufsanayn oo dhulka ka timidna intay ay qof soo baadeen qaybta puntland ay keento sidee shaqo ku qoraya kuwa puntland ee buufsan sidee bay ku aadayaan qaybta galmudug waxay ku aadayaan hadda niyow bajaajta galmudug tagta oo puntland haddii bajaaj cusub ay naga aado ma soo noqoto waxa weeye galmudug gawaarida lagu kala dhacaa horta nimayo meesha xaaladdaas ka jirtaa meeshaan laba maamul baa wada degan waa dad hoosta xaaladdaasana ka jirtaa meesha tanna waxaa la soo saaray warqad dowladda hoose soo saartay waxay tiri hal la buufsado baabuurta waxaa laga dhigo AEB sida meesha la yidhaahdo garowe iyo xamar waxaa diiday bajaajleydii kow waxaa kaloo diiday maadaama bajaajleydu waxay u diideen boqolkii aamina mudgal boqolkiiba 50 dadka bajaajleyda ah oo dhanka puntland jooga taarikadoodu waa galmudug ma fahanteen qodobka boqolkiiba 50 dadka puntland dhankeeda bajaajka ku wata ama xaafadaha puntland ka soo kaca taarikada bajaajta ugu dhegan waa galmudug ma garata sidoo kale bajaajta puntland bajaajta puntland oo maxay yidhahdaa taarikada puntland ku dhegan tahay dhanka galmudug lagama celiyo midda galmudugna dhanka puntland lagama celiyo ma garateen marka waa saas meel iskugu furan meeshaan dad bahdaay waxay lahaayeen waa xaduud waxaa la dhahaa laba magaalo oo kala fog oo dhul weyn u dhexeeyo oo laba kastam kale yaalla xaduud la dhahaa laakiin magaalo hal magaalo ah xaduud ma noqon karto ugu weyn dega puntland gaalkacyo yaalaayay waa maya waxaa ka wadaa tusaale meesha la yidhaahdo tukaraq iyo meesha la yidhaahdo buuro wadal soo dhul weyn uma dhexeeyo taasoo kale xaduud dan waa sax dhulguma dhexeeyo laakiin saniyo waxaan kuu sheegayaa lacagta ugu badan lacagta ugu badan dowladda wax ka heshaa waa qaybta galmudug weeye dadku ma fahansana laakiinse dhaata analysis anaa ka korta hadda hadalka qaado shanta wixii waxaa lagu leeyahay والله اساس يفرق والله اساس يقولها
marka ilmaadina saa u fahmaa ما شاء الله jabhadda shaqaalaheedii canshuurta. slave house-kii canshuurta meeshaan waxa weeye canshuurta kala qaalisan wiilkan bajaajka soo gatay wuxuu meesha galmudug u tegayaa oo شور taariikhda معها uga soo qaadanaya. بلايتكا واي بلايت بليت لمبر بلايت نمبركا lambarka waay markii blayt Soomaali waxaa lambarkana lagu oo dhahaa lagu taariko. siiyo canshuurta ayagay toos u aadaysaa because blaytkooda wadataa register u yahay ها marka waxaa marka anaga taarikada aan maskaxdeedan ka dagadegaynin hanoo sheegina maanta dadka oo taarikada ها miikiyo taarikada waaye taarikada Puntland baa qaali ah taarikada galmudug baa raqiis ah ها marka saas weeye waxa u jeedaa ninkii afhayeenka ahaa oo afhayeenka nin baawuur le waaye wuxuu ku yidhi taargada ninka been buu sheegayaa buu yidhi macnaha afhayeenka baawuur uu leeyahay wiilka aniga afhayeenka waxaad u dhihi inaan kuu sheegaa ninka la dhaho ardilow horta isbalaay afhayeenka nin baawuurtiisaa shaqaysay inaad yar wadada saaran afhayeeno taargada meeqa ku gadataadi ما أعرف ما يك لوليتو شنطة قيس أنا وماشي توكل وقت إشارة waa lagaa soo horeeyay butiyaala kaa soo